السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور بعض channel كيجو مناسو ولا شيء منا أصحاب تدي سيئتين في عنتين واني السلامي ملول بدون يدك جوكتين كسور بعض مقال عصب ما أنت مقال كأني وضو حواي روتين كيجو رمضان كأنسكو ديارنا إن شاء الله you also عنتظر بيبيجا وديارنا أنسيو ما أنتي إن شاء الله روانا نلقى بصدا هدي channel كيكو عصب تسو دوا وقعم فرو إني تسافئه هدا هو إلى جوكتين أن كاجم هاد عنا سيد قروح ذبن أمر باللي جوكتين جمعة مبارك جمعة wanaagsan meel walba adduunka joogto waxaan rajeynaa jimcadiina inay fiican tahay jimco wanaagsan soo marka ma sha Allah tabaaraka soo ujeedina asxaabteeda maanta waxa waaye ramadaanka la isku diyaarinayaa nalka ramadaanka alaabi sanadkii hore aan haystay ayaa fiirinayaa wixii ii shaqeynaa wixii kale especially nalka qaarkood sometimes markii xiriga laga dejiyo oo meel aan dhiga camal waa halaawayaan ma shaqeynayaan qaarna waaba liiga haleeyba gabadheeda halayseed soo marka maanta waxa waaye waxa fiirinayaa kii ii shaqeynaa kii kale soo marka ma sha Allah tabaaraka iyo waxa inta ku haystaa ana box kaanayta ana waxa ku haystaa ciidi alaabta ciidi ku haystaa ayagana ma sha Allah meel iska dhiga waay ku ciid mubaarak dhahayaan soo waxa waa sanad kasta aad wax yar ku soo darsadaa bad iyada soo tahayn waxa waay laakiin wixii oo arka intii oo maxalla ay halaaweyn waa iska tuura wixii kalena meelaan dhigtaa soo marka ma sha Allah ramadaanka alaabta Italy waa u jeedaa aad wax yar ku soo darsanaa I don't like in wax badan ku soo daro because every year na wax soo gado maaha wixii iyaale ameel iska dhigtaa soo marka ma sha Allah maanta waxa waaye ana isku diyaarinta ramadaanka lagu jiraa waxyaalaha decorationka iyaala enough inay yihiin in kala ina ogaada rabay wax yar enough yihiin laakiin nala u baahnaa nalka dhan waa iga halaaweyn ahayd labana la shaqeynooy soo marka ma sha Allah inta darbigaanayta waxa ka qaaday kumidinka weynaan ka qaaday head waxa rabaa muraayad iyo wax yar oo console oo table na soo dhigtaa haduu la yiraahdo but before soo dhiganin waxa waa inaad tiro waa qalina geeska leh geesaheeda dhan inaad si fiican u tiro waay soo marka ma sha Allah tabaaraka Allah waxaan la badaa routine oo Ramadan isku diyaarnay balaas maxalla shaqada guriga plus baby Amir cuntiis aan siinay maalintii waxyaalaha aan siiyo waxaan arjeynaa muuqaalka inay keeshin hadii aan muuqaalkeesa hanaga hilmaamina like noo saartay share ka subscribe ka comment-ga dhan intaas oo dhan waxaan u dheergina inaan more video noo suubiyo soo hadda kan ramadaanka waxa kamid ah kana haystay kan waxa sanadkan inta ramadaanka guriga dhinacana la sharxaya waay aw ka hor diriishada agteeda ahayd last year video yaasheeda soo marka waxa rabaa inta kan mubaarak u dhahoya asagoo kale waxaan hayaa ramadaan dhahayo oo waxa oo geesaha maxaa la aan dhijinayo waay waxaan ka helay waxa ka soo gatay ahayd sanadkii hore waxa ka soo gaday Amazon hadii u baahantiin kan oo soo counting oo ciid inta break dhiminta asagna ilmaha oo ku ciyaara markii ramadaanka oo dhigi oo ku dhijinayaan ayaga asagna Amazon ka helay because daa waxa ku caawinaysa ilmaha inay oo more oo ramadaanka ku dhex jiraan ay ogaadaan inuu ramadaan yahay inta break ciid ka hartay very good for kids hadii haysatid inay wax ku dhajiyaan soo marka ramadaankeena alaabahan waa soo ogaanay meelaha iska dhiganayna waay insha Allah sharxaad kale ku soo daraayo wax yar ba right now ma taxaro insha Allah inta la qabsada babyga cuntada aan siiyo cunugayga 5 bilood uu jiraa aan maxal lahaay soo 4 bilood waxa jira cereal oo star la dhahayo kaasa siinay but right now 5 bilood uu jiraa waxa siin kartaa korota siin kartaa ana bataatiga macaanka waa siin kartaa waxyaalaha soo dhan laakiin maalin waxa waaye korotada ku bilaabay head maalinna waxa ku bilaabaa waxa waaye ana bataati macaanka waaye soo laakiin kulligood hal mar isku daraysid laakiin cunug markuu 6 bilood gaaro bataatiga iyo maxaa la dhahay korotada kulli isku dar karto isla shiidi karto waa siin kartaa iyo broccoli-ga okay but right now waxa maalin kasta ina mid oo bartid waaye ogaatid inuu allergy ku yahay in kale soo hadda week waxa cuneynay in korotada cuneynay korota allergy ma ku qaba alxamdulillah soo hadda maanta shalay khamiista hadan waxa u bilaabay maxaan dhahay bataatiga macaanka u bilaabay bataatiga macaanka asagana aad ugu helo uu jeclaaday soo bataatiga macaanka xabadkaanay tawaafiqa waaye ka bacdi biyo uu karkarina haduu la yiraahdo andana u shiidayo insha Allah waan la qabsanaay imeeshin kuriga waxa seeto kale soo hadda waxa waaye korotada aan waaji jartay waxa rabaa insha Allah ina freezer ka dhigto koroto badan soo gaday had ina iga halaawdo maraw soo freezer kan gashanaya filinjarka freezer kan gashanaya ka bacdi haduu la yiraahdo markii oo rabo ina kariyo waa soo bixinaya waa karkarnaa waa u shiidaya leewa soo waxna miga halaaway ma sha Allah ana faa'iidan way leedahay maahno intii maalin kasta xabad soo qaban lahayd oo محل فيق لهاد إسبار إنها فيقة فريزر قشتت بيالا كوكر كريسد أو شيدد سو بطاطي جنا عصينا سيدو كلا يلا بعضها كل كبر شوية فريزر كمان شقوق عن جنايا
so marka ma sha Allah tabarakallah especially markii ilmo badan qabtid is very hard why ina maanta dhan oo wax oo fiiqdid oo shishiidid oo cunuga wax u kartid cunuga cuntidiisa siisay ilmihi kale isku soo wadid waqtiyada inay iskeenayaan so marka meal prep ahaan oo subsada freezerka kan dhiga makira waa karkarina oo shiidale waa cunaale waa so marka ma sha Allah xalay waxay ahayd chicken filinjeerka aan gashtay ahayd chickenka haweenkii aan season gareey xawaaji tuun wax kasta ku dar oo dhadhanaan filinjeerka aan galiyay subaxii saan u karsanaa aad u macaan u yahay insha Allah try gareeyo so chicken kan meesha sa dhiganay qaybta amiir waay oo raashinkiisa loo karnayo ma sha Allah cuntadiisa 5 bilood waay waa siin kartaa cunuga aad 5 bilood uu jiro ku bilaabi kartaa afaarahaneeto so marka ma sha Allah tabarakallah waxa inta bataatiga saas u kare qaandadan ku qaadayna kabacdi waxa waay waxaan ku shuwaaya bahalkaaneeto oo shiiday ana ma haysta baby oo kan babyyaasha u shiiday maasti markii aan raaw inaan cunugayga raashin u suubiyo waxaan suubiyaa kan raashinkan oo shiiday asaga la safiican u dhaqaa shaambaa ku dhaqaa waa nadiifiya markii asi tookadiisa ay la gaaro inuu wax uu shiidata asoo nadiif oo u shiidaa so hadda waa kaas bataatigii oo karay biyaha bataatiga oo ku kariile ku shubooya asaga la isku shiidaya markaas maxaa la bataatiga inuu adeeg noqdan maraba intuu zaaid bibi u noqdo maraba adeeg dhexdhexaad ah inuu noqdo so marka ma sha Allah tabarakallah alaabahaneeto oo fururkaanita haysta fururkaana raacsiisanaya andan waa ku shubanaya waay filinjeerka ginaya maalin kasta buu soo bixinaya oo ku leena waa siinaa waay okay andan markuu dhamaado hadan mid kale loo karnaya so marka ma sha Allah inta waxa kugu oo yareynaysa kugu maxaa la shaqada kugu yareyn waxa waay hadii oo ilma iskuul soo wadaysid an maxallahay waqtigu urdaya ilma iskuulka geesay gurigaas suubinaysa hadana cunugiya raashinkii hadii ku shiidaysa hada saa camal loo biri ana kuwa filinjeerku cunaa ka bacda hadana duulay yarahada maanta kala dana u suubinaya waay so this is very easy why meal prep why filinjeerka caadiga u xareynaysa hadii aad aragtid inuu cabaar u yaalaan freezerka meesha qabowga gelinaysa so waxaas hada qaybtiisa hada uu cuni lahay meeshana loo guriday saxankiisa yalooga kuwa kalena saan waay ma sha Allah bataatiga macaanka aad u weelay hadii aad rabtid maxaa lahaay vitamin D ga markii cunugaaga hadda aan vitamin D munaytusin laakiin raashinka markii aan siinaysa vitamin D u baahan ma vitamin D ga wax yar 1 drop ahaan ugu shubeysa oo ul qasaysa oo kula siinaysa so marka ma sha Allah tabarakallah saana soo suubinay hadii aad channelka ka heshiin mise videoga ka heshiin like noo saaro noo share gareey noo comment gareey insha Allah way like video markuu arkay YouTube inuu like badan u haysto uu noo share gareynaa hadii la yiraahdo so marka ka hilma in like noo saartid waxay ugu dhiirigelinaysaa more video inaan soo suubiyo hadii la yiraahdo marka asxaabteeda hadda qaybtaaneeta oo soo hartay filinjeerka ayaa loogu xareynayaa filinjeerka meesha caadiga because loo bari la ugu jiraa ka bacdu uu cunaaya waay so filinjeerka ku xareysanayna waa noo diyaarsan yahay hadan weega dhexdiisa hadan mid kale la suubinaa nooc kale so maalinba waxa ku tijaabiyo waxa waay last time 3 days wuxuu cunaa karoota ahayd hadda aan bataatig macaanka loo bilaaw ilaa sabtigu cunaa hadan axad waxa lagu bilaawaa broccoli lagu bilaawaa sidii u ogaado wuxuu allergic ku yahay because raashinka kulli hal mar asiina hadii dhaadid you don't know wixii allergy oo ku so marka sidaas darteeda maalinba intii wax oo ku bilaawdid waay so marka baby amir raashinkiisa intaas ku egtaa hadii aragtin more raashinka waxyaalaha aan siiya asiga aragtin comment ku soo qor insha Allah waan ila share gareynaya so hadda insha Allah inta waxaa inta ila qabsada waxa iga halaabaysay hada kabsar caleen kabsar caleen iga halaabaysay so kabsar oh my god ma dhigi karibo kabsar caleenta araba insha Allah intii oo shiita araba because iido isla markii halaabda soo ogtihiin so meesha hadda tuuna ku shubtay wax yar biyo kabsar caleentii aan isku shiidaya intaana isku shiidaya duulay yaraada ka bacdu waxa rabaa freezerka inaan dhigto marwalba aan wax aan karnayo wax yar la soo qaadanaya ka bacdu raashinka ku darsanayo kabsar caleenta hadii aad rabin inay ka halaawdo shiido tuun ku darso waxaad ku darso shiida filinjeerka freezerka gasho qabowga meeshan sida barafka camalan ku dhahay hadhow markaa rabtid hal xabo laga soo baxsanay raashinka ku darsanay ko markaa qasaarayso laba lacagtaada save garaysay saddexna waxa waa easy ku tahay kabsar shiid iyo waxa seed saacadaas musuubinaysid so marka afaara waxa la howl fududeesa la hadii hooyo aad arabtid hawshaad inuu ku fududaato so marka ma sha Allah intaas oo soo shubnay because boqa kale waxa waa duleelsan yahay arkay intaana ku ekeeyahay
marka maasha Allah tabaaraka Allah asxaabteeda marka dooradeenana intaan ku egtaa iidan tartiibteeda waa iska karaysa intii waxaas isku suubsaneeno waa noo kartay ahayd maasha Allah aad ay macaan u ahayd doorada haweenkii finijeerka gashto iyadoo oo suubsaneen waxeeda mamarsado intan wixii dubta macaankan ka dhaw waa kaylaysiin insha Allah muuqaalkeena maanta intaanu ka igiya haddii muuqaalka yeeshay like share subscribe comment dhinaciinaada muuqaalkan maaha muuqaalkiis kale inta isku kulmeena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiina bye.